Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelkayga Sakeyno Beauty and Cooking. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay amba ay tahay markii ugu horeysay aad daawatid, please channelka subscribe saar, gambaleelka rambisilkeena taabo si wax walba aan usoo dhigno oo kuugu soo galo oo aad noqotid qofka ugu horeeya daawada fiidiyoyadayda. Haddii aad nala joogteedna aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Maanta waxaynu hayaa casariye yar amba cashaba kulba ka rabta ka dhigo oo ah quraac amba donuts yaro easy loo sameynayo. Soo ila daawada sidaan u sameynay iyo waxa aan ka sameynayo. Daawasho wanaagsan. Marka donutka amba quraacina waxa aan ka kooban yahay alaabta halkan taala. Halkan bacdaniyada waxa ugu jira half kg amba nus kiilo daqiiqdeena cad amba burkeena cad. Marka waxa laga yaabaa inaanad haysan miisaan aad ku cabirto daqiiqdaada. Marka waxaan ka sameynaynaa 2 koob iyo bar daqiiqa. halkana waxaa iigu jira bakeerigan koob caano ah. Marka caanahaas waan ku xashi doonaa daqiiqda, laakiin waxaa laga yaabaa inay bar ka soo haraan madhow toole oo aanan koobka ku wada xashin. halkana waxaa iigu jirta 3 malqaacadood oo sonkor ah. koobkan yarna waxaa iigu jira saliid, waxaan ka cabiri doonaa 2 malqaacadood isaga saliida ma soo cabirin. halkana waxaa iigu jirta yeast oo malqaacad iyo badha iyo xabad beeda. ugu hore waxa aan soo qaatay baaquli amba mandeeban. markaas sonkortayda waa u jeedaan way buurbuuran tahay. haddii aan sida ayadoo buurbuuran daqiiqda ku xash, daqiiqda way kasoo dhex muuqanaysaa. soo waxaan sameynaynaa sonkorta iyo yeastiga iyo in yar oo caana ayaa isku radinaynaa muddo 5 daqiiqo ah. markaas baaquliga mandeebada waxaan kusoo shubay sonkortii, haddana waxaan ku darayaa yeastigii, kadibna waxaan ku darayaa wax yar oo caano ah. intaan isku walaaqo ayaan isku soo radinayaa amba isku dhex deynayaa 5 daqiiqo. soo 5 daqiiqo kadib baa ku soo laabanayna insha Allah. 5 daqiiqo kadib waana isku soo yaro walaaqaynay. marka way soo milmatay sonkortii. haddii sonkorta ay san buurbuurnayn waa iska dhaafi kartaa sidan. soo hadeerna waxaan ku darayaa 2 qaado oo saliid ah amba badhar kulba ka haysatid oo kaas ah. waa ku daray 2 qaadayda saliid ah. kadibna waxaan ku darayaa 1 xabo oo beed ah. kadibna waxaan ku daraynaa malqacada dabadeeda oo milix ah. soo intan baan isku walaaqaynaa si fiican baa iskugu walaaqaynaa. soo hadeer waxaan ku darayaa 2 koob iyo badh bur ah. soo hadeer waa inaan xashnaa. bismillah. markaas si fiican ba u soo xasayna. imka ayar ba isku dhex gelinaynaa waayo caanihi alaabtii qoynayd ayaa hooseysay. marka waa arkaysan caanahana barbaa ka haray oo bakeeriga ku haray oo kumaan wada dareen markii hore. marka si fiican ba u soo xashaya. mar walba oo aad si fiican u soo xashto mar dhow toolo quraac wax fiican buu noqonayaa. si fiican u soo xashay sida arkaysan. soo hadeer waxaan marinayaa saliid saa markaa u mariyo baaquligeedii baa iskaga wareejinayaa. soo 1 saac waan ka maqnaanaa insha Allah. 1 saac markaan ka maqnayn burkeeni waa ku soo laabanay. waa arkaysan siduu u soo kacay oo u soo weynaaday. kadibna waxaan soo qaadanayaa qollow amba baalkii daqiiqdan xashan aan ku fidin lahayn. kadibna waxaan marinaynaa saliid amba badhar amba daqiiq walba ka aad jeceshay inaad ku fidsatid. soo saliid markaan saa u marino waxaan sameynaynaa alaabteena aan soo xashanay baan dib in yar u xashaynaa. haddana si uu naqsku uga baxo waayo hadeer naqs baa ku jira. markaa xashtay wataa dib u noqonaysaa. kadibna waxaan sameynaynaa qorigaan soo dul dhiganaynaa amba qollow waxa. kadibna waxaan u qaybinaynaa 2 qaybood.
marka akhyaare sida aad arkaysaan ayaa u fidinayna amba sida caadiga sabaayadii waxyaabaha loo fidiyo laakiin lama rabo inay noqoto wax khafiifa sida sabaayada waa inay yara buurnaataa gadaal baa idinka tusi doonaa insha Allah marka aan jarjaro intay buurnideedu ay leeg tahay haddii aan khafiif ka dhigto ma noqonayo downadkii la rabay soo waa inay wax yar ay yara buuran tahay qaybtan inta kama fidinayno inta xabadoodii noqotana waa idin tusaaya insha Allah waxaan ku jarjaraynaa sufurka afkiisa wareegga asaasan ugu jaraynaa kana wax waaye fur yar oo kokoolaha aan idin tusiyo kokoolaha caagdiisa ugu yar furkiisa waaye kokoolaha caagada ugu yar furkiisa waaye amba waxaa ku cabiran kartaa kan furkiisa waxaan u doortay aad ayuu furkiisa u yaryahay hadii kale caagada waxaa ku cabiranaysaa biyaha laga cabo furkooda oo kan way ka yaran yihiin jarjarayna kadibna waxaan soo qaadanaynaa taray amba bilayr kadib waxay roosaliida ayaan marinaynaa kadibna alaabta iyada ahaan ayaan soo qaadanaynaa saasan dhammaanteed ku soo wada dhamaynaynaa insha Allah buurnidiisa amba dhinaciisa waa inuu intaa leekaada waa arksan intuu leeyahay waa weyn yahay yacni wax yar oo yarkuus waa inaa ka dhigta khafiif ha ka dhigin saliidii baan dabka soo saartay saliidii waxoogay waa ii soo kululaatay markaa saliid badan baan maqliga kusoo shubtay waa arksan waayo quraacanaaba loogu talagalay inaa saliid badan lagu shiilo soo hadeerna waxaan ku guraynaa quraacii bismillah sidaas ugu soo wada guraayaa dhammaanteed soo wadi ka arkaya markuu saliid dhex kale waxoogaa uu soo yaro waaweynaanayaa kaasa intaas waxba kurido arkisa soo waa inaan hadda aan rogrogo sida quruxda badan ayuu ku dubmayaa karaal noqdaa daashan qarma gashan daaqada ay furayso waxaa ka soo gelaysa qaylo kalarkaad rabtaad kaga qaadanaysaa mar walba waxaan jeclay kalarku inuu wax yar madow yar xigo amba uu shaaxid yara noqdo soo hadda waa ka gurayaa insha Allah markaas waa dhameeyay
markaas soo wada dubo ayaa iska soo laabanayna insha Allah. aakhirtaankii downidkii isaga ahaa amba quraacii saas uu soo baxay idinka arkaa laba bileeraan ku soo gala riday kaala iska arag waaye macaankiisana anaa idinka huba jagas waaye wax saa u fiican waaye. soo downidkiisaan markuu yahay waa ogeydeen markuu ugu horeysay 3 malqacdood oo sonkor kaliyan ku soo dirnay soo hadda ma lahaayeen macaan badan. soo waxa u baahan tahay inaad soo qaadatid sonkor aan soo ridaqnay oo sida budada noqotay iyo shaandho. soo kan intaan aan ku shubaynaa kana nooc kale oo sonkorta laftigeeda oo baa ku shubaynaa. soo shaandhada intaan ku shubo sida intaan shaandhada ugu shubo ayaan ku dul wareejinayaa insha Allah yani saas oo kale qurux kaala iska arag macaan. وكاسا واركسان دي قروح ديسا سو صباحي سو كاسا قيبتا ايادا ساسا كسو دمينا سو وانا اذن تساسو يهي دحديسو وكاسا جلاعة سو يهي واركسا كدبنا كيكا لا ساوسو قادنا اياه kii kale isaga waxaan sameeynaa sonkorta iyada ahayd halkan taali baa waxaan ku qooshinaa wax yar oo caana ah. sonkorta waxogay baa ku shubaynaa intaas oo kale aan ku shubnay. waxaan soo qaadanaynaa caano kadib waxaan ku daraynaa wax yar dhibic yar oo caana oo intaas sonkorta ah haysato un qooshta. waa eegina inta qooshiisa insha Allah ayr baa ugu dareynaa sonkorta iyada inta qooshiisa ayaan fiirinayna insha Allah. soo kaasa wuxuu u baahan tahay in yar kale oo caana ah. soo si fiican baa hadda inta ugu qooshinaa كاسا سفيعان با uqooshnay. soo qaybta waxaan sameynaynaa sonkortii iyo caano yara isku qooshnay baa korka kaga dareynaa quraacii aan haysanay saasa korka uga shubinaa kaala iska arag waaye. وكاسا قراعة مركا aan sonkortii qoyneed aan korka ka marinay wax yar baan banaanka dhigay suu u qalalo oo aanba ay sonkorta ugu qalasho quraaca. soo sonkortii quraaca waa ugu qalasho weydinka arkaya saa quruxda badan leh oo uu soo baxday kaala iska aragta ah. soo saasa ka soo dhameynay quraaca isaga ahaa. haddii aad channelka ku cusub tahay waxaan ku leenahay ku soo dhawow channelkana subscribe saar gambaleelka yar amba jaliskeena taabso si wax walba oo soo dhigno uu kugu soo galo. haddii videoga ka hesheen please like saara commentkana igu soo reebo wixii fikrada ii soo gudbinaysaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan leeyahay maca salaama.